بسم الله الرحمن الرحيم عشر ردني فصل كسيداتك أو تحناها هاي إنه سعودي عطب كشنات بين ربنا مانتا إنه أرجناه 10 كيس صدحات سئات تحناها يسمرك 10 كعاد ولا سعته وحكنا قنية 10 ردني هراء بحي مرك كلا قدرة 10 كي تضباط بنقنية وحين مرك كو أركينا سوغانتا هل قبي أو مانتا وحيدين وضع كمد قبي هذا فصل كسيدات عوان كيسنا اللي يرادو والدني وين gabaygaas abwaanka tirshay waxa la yiraahdaa Xaaji Aadan Axmed Xasan Xaaji Aadan wuxuu ahaa nin muwaadin ah oo waxa weeye diilay ku run yahay ragii hore kamid ah Xaaji Aadan wuxuu ahaa nin gumaysiga aad u nabca waxa weeye diilay ku run yahay ragii xornimada maanta aynu ku naaloonayno u soo halgamay buuna qayb ka ahaa gabayadiisuna guubaabo iyo waxay isugu jireen dhiirigelin in uu dadka dhiirigeliyo oo ay ka xoroobaan hadii Ilaahay ku run yahay gumaystayaasha Xaaji Aadan marka wuxuu dhashay magaalada Ceerigaabo wuxuu ku dhashay 1864 dalka dibadiisuna wax ku soo bartay waxa uu halgan dheer u soo galay in aynu ka xorowno gumaystayaashii reer galbeedka Xaaji Aadan waxa uu geeriyooday shantii bishii toddobaad 1986 isla magaaladii Ceerigaabo buu ku geeriyooday gabaygii hadda aan rabno inaynu ka hadalnana waa gabay waxa weeye ka hadlaya in gacmaha la isqabsado oo waxa weeye Ilaahay ku run yahay la midoobo Xaaji Aadan marka taariikhdiisa hadaynu wax yar iska xasuusino inkaani isaga oo 31 sano qiyaastii jira buu wuxuu ka tagay dalka dibaddiisuna u baxay waxbarasho buu aaday halkaas buu ku maqnaan jiray muddo adigu waxa weeye Ilaahay ku run yahay 50 sano ah buu dalka ka maqnaa kadibna waxa uu soo laabtay xilligii dhaqdhaqaaqa gobernadorka SYL buu soo laabtay 1943 Xaaji Aadan waxa uu ahaa nin aad u nasiib badan hoodo badan ayaan iyo hoodo iyo cawo iyo nasiib waa isla macne marka nin aad u nasiib badan buu ahaa sababtoo ah waxa la yiri isaga oo yar baa waxa qaatay libaax baa qaatay arligu waagaas wuxuu lahaa libaax Ilaahay amarkiisa hadii uu qaatay waxa dhacday goortii uu la tagay oo muddo adigu inta ariga soofkiisa la dhaafay buu iska dhiga Ilaahay baa ka dhigay maan reerkoodina wiil yar oo xalay libaax qaatay waxay isiraahdeen waa maca salaam ay isiraahdeen marka Ilaahay bay iska tala saarsadeen kadibna gabar kale oo ari ood ka qaadatay oo isla degaankii ah baa waxay aragtay iyadoo arigeedii la joogata wiilka yarka oo waxa weeye Ilaahay ku run yahay dhiig baxay oo meesha yaala kadibna waa ay qaaday gurigii bay ku celisay halkaas ay ku baanatay muddo ka bacdina reerkoodii baa loo keenay nasiibka halka marka uu libaax kaga badbaaday abwaanku waa u lahaa tan labaad oo hoodooyinkiisa kamid ahayd ama nasiibkiisa kamid ahayd waxa kamid ahayd isaga oo marka 8 jir meelaha ah oo nin weyn adigu kuray ah oo reerku xeebta iyo meelaha joogo wuxuu sameeyay looxaan iyo alwaaxyo isku xirxirtay meesha biyaha ay ka laabtaan oo caarida ah wixii isku xirxirtay kadibna mawjadihii yararka ay soo jabiyay buu ku darsaday isagoo ciyaal waa iska garanaysa moogtay isagu waxa weeye hawsha kama daalaan moogtay 24 saac qoraxda markay soo baxday ilaa markay dhacdo waa iska ciyaarayaan marka dibindaabiyo iyo waxa iyagu ma arka qof weyn laakiin haduu yiraahdo ciyaal baan la ciyaaraya maanta nafta ka dhacaysa marka nin iska dhalinyaro ah waxa kadibna mawjad bay u sii dhiibtay waxa weeye biyihii damo oo laabanayay baa la tagay maca salaam asaas ku tag reerkii marka hadhow way meesha yimaadeen raadkii oo meesha waxa weeye xeebtii badii baa qaadatay maca salaam laga tagay waa asaas kaga tagay markii labaad waxa dhacday marka niman waxa weeye badda ka ganacsan jiray Carab iska ahaa meelahooda waxa weeye baraakiibtooda iska watay baa waxay arkeen wiilka yarka oo looxda waxa weeye dusheeda saaran kadibna waa ay qaateen iyaga korsaday isagoo nin weyn oo marka kuray oo nimanka la shaqeeya baa nin kale oo reer guuray iyo xeebta maraya oo xeebta degan baa wuxuu arkay wiilka Soomaaliga oo nimanka la joogo kadib haday nimankii iswareysteen wuxuu ku yiri wiilkan xagee baa ka keentay markaasay waxay yiraahdeen wiilkan annaga korsanay adiga maxaa ka galay adu hadii la ismaan dhaafay nimankii waa uu dhaartay wuxuu yiri isoo wareejiyay wiilkan Soomaaliga waxay idinka midlin ninkii isagoo marka isaga la jooga gabarha habareertiisa baa aqootay isagoo ciyaalkooda la jooga maantii dal markaasay waxay tir wareen ninkan waa weynay intaas oo sano naga maqnaay xagee baa wiilkan ka heshay markaasuu yiri xoolo waa ina bixisaanin baadifada maadaama anigu aan halgan dheer u galay oo waxa weeye nimankii waxa weeye Ilaahay ku run yahay haystay aan ka soo badbaadiyay baadifada marka waxa weeye marka xoolo ka baxsadaan qofka xoolaha ku soo helay xoolaha aad marka siiso marka ninkii xooluhu marka ka qaatay reerkii markaasna saas ku soo badbaadiyay هذا يمكن سوحة كلا كم إذا أبوان كده عمر دير بقى إلهي سيئو
sida taariikhda meesha inoo ka muuqata 1862 ilaa 1986 waxa u dhaxeeya waqti aad u dheer baa u dhaxeeya cimriga Ilaahay waa u barakeeyay marka taasna waxay ahayd mid ayaankiisa ama nasiibkiisa ka mid ah xaajiga marka gabaygiisan baan rabnaa marka inaynu u tagno gabaygan waxa weydii la ku ron yahay baan rabnaa inaynu marka isla aragno bal sida uu abwaanku u sheegay abwaanka gabaygiisa waxa uu ku bilaabay dubka kala tagane haybta way isugu tegaynaye cilmi maaha ka tabarbadniyo tirbiraanahaye nimbaatiisu way dhimaantaho toya beel ma lehe tabantaaba la iscaawiyaa waatu waajibay dhibtu waxay ka timi uumiyaha tirada weyn gaaray 90 gaaja la isaa jiro 10 dheergayaane kuwaasoo wuxuu loo taray tahay aqoontiye mar haddii cadliga laga tago la isdhexgelin waayo inay nabadi taam noqoto waatu aan la eegayn way qaybtaas marka wuxuu sheegayaa abwaanku in la isku tiirsanaado oo dadka waxa weeye cidii wax haysata ay dadka kala gargaadho oo gacanta la isqabsado baa horumar lagu gaaray haddii laakiin ninkii xoogaa haystaana uu xoogaagiisa isku filaysiiyo kii kale waxa weeye baahan oo la Soomaali ah oo waxa weeye la diin ah oo baqtiyana uusan gacan siin waxay noqonaysaa isagana marka in gurigiisa loogu soo galo marka in la iscaawiyaa waxa ku jirta nolosha iyo waxa weeye dila ku ron yahay cilmiga la sheegayay waa in aad miskiinkana caawisid waxa weeye dila ku ron yahay aadna gacan qabato wixii uu u baahan yahay markaas aad waxa weeye tala iyo tusaale mid ay doontaa noqotay aad gacan ka siiso way abwaanku warka wuxuu yiri dubka kala tagane haybta waa isugu tageynaa waxa weeye dad kala fog inagu ma idni xogaa dadku maqaar ahaan waa kala duwanaan karaan gobol ahaan waa ku kala waxa weeye xogaa meel kale ku kala noolaan karaan laakiin de waxaan isla nahay Soomaali baynu isla nahay waxa weeye dad islaam ah isla nahay hal af baynu leenahay ilaah baynu leenahay hal qiblaynu leenahay dad kala tagay marka inagu ma idni wuxuu yiri marka cilmi maaha ka tabarbadni oo tiir biranahay cilmiga waxa la yiraahdaa marka waxa ma aan buu yiraan awood ugu faanto uu yiri walaalka ma aha cilmi laakiin wixii ahay muxuu yahay waa uu soo waday wuxuu yiri nimbatiisu way dhimantaho tooya beel bale war isku filaansho ma jiro buu maanta hadii aad xoogaa haysato ama caafimaad qabto wali waa baahanta marka wuxuu yiri cilmiga wakan beedkan buu ku sheegay wuxuu yiri tabantaaba la iscaawiyaa waa tu waajibe dhibtu waxay ka timi uumiyaha tirada weyn gaaray waayadii hore marka waayadii hore dadku ay yaraayeen awrgaad celisay waxa la soo celi jiray waa la iscaawin jiray laakiin hadda dadkii waa farabatay oo waxa weyn nin walba ay xoogaagi marka uu haystay wuxuu shibtiisu u gal marka lama rabo waxa ilaahay barka wax ka siiyay maanta intii aad cunto iyo intii aad la baxdo baa ku leedahay waxa kale iyagoo taagan baa ka dhaqaaqaysa marka waa inaad wax la baxday marka wuxuu yiri 90 gaaja la isaa jiro 10 dhergayaane kuwaasoo wuxuu loo taray tahay aqoonti abwaanka aqoonka wuxuu ku macneeyay inay tahay kuwa masaakiinta in gacan la qabto oo la gargaaro taasa waxa weeye cilmiga ah wuxuu yiri beedka ku xiga mar hadii cadliga laga tago la istixgelin waay laba erayba meesha markuu ku jira cadligaas meesha wuxuu ugu jira sinaanti waa cadaalad iyo tixgelintuna waa kala damayntii inay dadku kala dameeyaan oo la is-ixtiraamo marka wuxuu yiri hadii cadaaladu meesha ka baxdo cid istixgelinaysa iyo cid kala damaynaysa midna ma jirayso wuxuu yiri marka haday labadaas meesha ka baxaana inay nabadi taam noqoto waa tu aan la eegay nabad iyo xasilooni inaynu ku naaloonaay eegimayno hadaynu cadaalada ka boodno ila kala damayntii marka meesha ka baxaysa marka ardayda waxaan rabaa erayada hoosta ka xariiqan in aad buugaaga ku qorato kadibna macnahooda marka aad qorato erayga ugu horeeya waa dubka erayga ku xiga waa cilmi erayga ku xiga waa tamar erayga ku xiga waa tooyo beel tabantaabo baa ku xiga uumiyaha ku xiga 90 baa ku xiga cadliga baa ku xiga tixgelin baa ku xigta taam baa ugu dambeeya erayada marka meesha ku qoran goorta qorato dubku wuxuu la macno yahay maqaarka cilmina waa aqoon tamar waa awood tooyo beel waa isku filaansho tabantaabo waa kaalmo ama in la iscaawiyo uumiyaha waa umada ama dadka badan 90 waa eray carabi tira carabi ah marka waa 90 cadliga cadaaladda bay marka meesha ugu jirtaa marka iyadana waxa ku qoranaysaa sinaanta tixgelintu waa kala damayn taamna waa dhamaansho ama xasilooni inay wax ku dhameystirmaan ama deganaansho
waxa ku xiga qaybta kale oo gabayga wuxuu yiri sawaariikh nin taabiyo ninkii tori bira haysta ninbatu awooda badil way isugu tagayaane naftu waa tuqura oo ma jiro tajir harayay tusbax weeye gees laga furo togis wadara gantaalaha tamuumiyo sunta turista u dhowe haydarajiinka ku tumaan tacabkii insaani taariikhda weyniyo cilmaata ka baabi wuxuu yidhi marka halkaas sawaariikh nin taabiyo ninkii toori bira haysta toorida waa taqaanaa waa baasha reer miyigu ay halkaa ku xirtaan iyo ninka sawaariikhda gantaalada noocaas haysta labaduba wuxuu yidhi ninkii awoodo nin walba tuu haysto wuxuu yidhi dil waa isugu tegaya haddaad toorey wax ku dishana waxbaad dishay dee markaa haddii aad sawaariikh wax ku dishana waxbaad dishay mar walba waxa weeye adduunku wuxuu yidhi labadoodu dil waa isugu tegayaan naftuna wuxuu yidhi waa tu qoro oo ma jiro taajir haraya war nin la dhaafayo ma jirto meesha nin walba waa dhimanaya xoogaa baan haystaa iyo nin dhallinyaro ah baan ahay iyo nin odaya oo abwaan ah laga xishooday iyo waxa malakamood kuma yaqaan taadu markay gasho waa dhimanaysaa tusbax buu markaa abwaanku soo qaatay wuxuu yidhi tusbax weeye gees laga furo toog is wada raac toog marka maxay meesha ugu jirtaa marbay meesha ugu jirtaa ebel waa tuurtay anuu tahay adiguna toogtaadii baa hadhayahay qaabkaas oo kale marka wixii marbay isa soo wada raacaya haddii marka tusbaxa tusaale ahaan marka aynu sawirkiisoo kale aynu muujinno tusbaxu saasoo kale markuu samaysan yahay raatib buu leeyahay soo ma kaas marka haddii halkaa qofka jooga ay tiisu soo gasho dadkaasina ay ka sokeeyaan la oran mayo kuwa hal la laayay iyaga ka sokeeyay ka hal daayay lama oranayo meeshaada lagu iimaanaya marka tusbixi marka haddii halka aynu ka furo duntii aynu goyno saasa la isu wada raacaya marka wuxuu leeyahay tusbax weeye gees laga furo toog is wada raaci buu leeyahay gantaalaha tamuumiyo sunta tuurista u dhow gantaaluhu ridada dheer tamuumka ereyga ahi waa erey orod ah moogta xawaare dheer buu ku soconay suntuna waa garanaysaa iyaduna marka wuxuu yiri haday sawaariikhdii iyo waxa way tooreedii aan barbar dhigno gantaalaha iyo sunta kuwan ba marka labadooda iyaga tuuris u dhow haday noqoto haydarajiinka ku tuman buu yiri tacabkii insaan wixii marka horumar la soo gaaray oo wax weydii la ku reeyay la soo socday tusaale ahaan caalamka markii aad aragto waxa arkaysaa dabaqyo aad u dheer oo wax weeye dhisan iyo kuwa gaagaaban qaabkaas kala taa marka horumarkan iyo ilbaxnimadan la gaaray hadii aan la tashan oo waxa weeye aan nidaam iyo sharci loo dejin de waxa soo dhan waxa weeye hadhow marka la dagaalamo xabadaha iyo waxa weeye sawaariikhda iyo waxa weeye atomic nuclear bombka iyo waxa la isku ridaya dhulka dhigaya marka kadibna waxa marka meesha ka dhalanaya in la iska calaacalo marka ilaa waxa weeye tacabkii iyo wixii la dhistay iyo wixii dila ku reeyay waa laga tashan waa la burburiyay marka erayada halkan inay ku qoran iyagana oo arba inaan qorato waxa kamid ah sawaariikhda toori toog tamuum iyo tacab marka sawaariikhdu maxay noqonaysaa sawaariikhdu waa gantaalihii bay noqonaysaa tooreedana waa garanaysaa waa abley ama waxa weeye bilaawe bahasha waxa weeye qalabka raggu ay xirtaan toogtu waxay noqonaysaa mar bay noqonaysaa ama fursad bay markaa noqonaysaa tamuum waa nooc orodka ka mid ah ninkii odaga ahaa waa tuu oran jiray tu alifka oo dhacay hurdada tow ka soo iray tamuumkii baan ku imi meel jino la istamadinayn marka waa nooc waa qayb orodkii ka mid ah tacabkuna marka wuxuu noqonayaa hantidii marka umadu ay lahayd bay noqonaysaa marka naasa waa hanti waxa ku xiga marka aan qaybta u dambaysa gabayga wuxuu yiri marka ay xadaaradii tagtee la istixgaalin waayo boqolka tobankii haraatuna awood waayo tihiyo mugda lagu dambayntii la soo maroy sharkaata bagelin khayrna waa tala kaarahaye xilma taabin nimankii waqtiga taabka buuxsaday ummadii timaadaana watayna calaadayaani allowya dhib waxaa loo tabcaday sama ku tagir wuxuu yidhi mar hadday xadaaradii tagtee la istixgelin waayo xadaaraddu waa ilbaxnimadii iyo horumarkii ummaddu ay gaadhay xadaaradii marka la burburi ila tixgelintii iyo kala dambeyntii cadaaladii baa meesha ka baxay soo ma boqolka tobankii haraatuna awood waaye midna awood waaye boqolkii dadkii marka boqol bay ahaayeen toban baa ka soo haray 9 kale nabadii bay ahaayeen waatay gaajada iyo fakriga iyo waxa weydii la ku runayay ay baabi'iyeen tobankii soo haray iyagina waxa la awood waaye macsanaan ilaa waxa weey kala dambeyntii iyo tixgelintii iyo in la iska garab qabtaa meesha ka baxay maxaa marka halka ka soo baxaya tiih iyo mugda lagu dambeyn tii la soo maray mugdigu waa garanaysaa waa habeen tiihuna muxuu noqonayaa calaacal buu noqonayaa xadaaraduna waa ilbaxnimo tuna midna way meesha ugu jidhaa iyaduna
wuxuu yidhi marka sharkaa taaba gelin khayrna waa taa la kaarahay maxaa dhaqan gelaya sharkii baa dhaqan gelaya khayrkiina waxa weeye waa laga carab maxaa marka soo haray xil ma taabin nimankii wakhtigaa taabka buuxsaday ninkii xilligaa wax tabcaday ama qaabka noocaas oo kaleeto u fakarayay waxa weeye wax xil ah iyo mas-uuliyad uu isa saaray iyo horumar uu gaaray midna ma jirtuu leeyahay ummaddii ka dambayso hadhow timaadaana waa nacladaya inkaari kugu dhacday bay leeyihiin balaayo kula tagto jiilkii naga horreeyay wax burburiyeyo habaar bay halkaa kula fadhiisanaya marka adduun iyo aakhiraba hee kuma la imaanaysa marka abwaankii beydka ugu dambeeyay oo gabaygiisa wuxuu yidhi allow yaa dhib waxa loo tabcaday sama ku taageera samuhu marka waa wanaag haddii marka wuxuu yidhi wanaag wuxuu yidhi laga dhigi lahaa arrintaas waxay noqonaysaa waa la fududaan lahaa arrintu waxay noqon lahayd horumar baa la gaari lahaa haddii waxaa baabahada la isaga dhigayo oo la isku baabi'inayo dhanka wanaagga looga faa'iidaysan lahaa waxa weeye horumar baynu gaari lahayn ummadaha marka waxa weeye ilaahay ku run yahay horumaray baynu gaari lahayn ummad kasta oo marka isku tashi gaadhay waa aragtay aad bay u horumarnaa ummad kasta oo iyadu isfiirsato isbaabi'isaana waxay ku dambaysaa marka caqacadkaas iyo mugdigaasi ku dambaynaysa waayahay gabayga marka layligiisa su'aalaha kan baa ugu horreeya ka war celi baa la yidhi weydiimaha hoose yaa gabayga curiyey ama yaa gabayga tiriyey sheeg nooca gabayga xaggee ku dhashay gabyaagu sheeg sanadkii uu dhintay maxaa ka mid ahaa hoodooyinkii gabyaaga imise jiray gabyaagu markii uu dhintay qor beydka abwaanku uu ku xusay hee in la iskaalmeeyo marka lambarka lixaad oo kale waxa la imise jiray abwaanku markii uu dhintay abwaanka haddaa taariikhdii uu dhashay haysato tii uu dhintayna aa haysato labadaa taariikhood baad markaa kala jaranaysa halkaasa waxaa kaaga soo baxaya inta abwaanku uu jiray waxa weeye qaybta u dambaysana waa tan qor baa lagu yidhi macnaha erayadan hoose taajir maxaa laga wadaa macnaha ereyga taajir baa sheegaysaa tiih baa sheegaysaa macnihiisa same maxaa laga wadaa ama samaan uumiyaha tooyabeel dubka ereyadaasina waxaa la rabaa inaad macnayso iyagana halkaas waa cashirkeenu ka geeyay